fadlan haddii tahay markii ugu horeysay muuqaalka like noo saar, channelkana subscribe noo saar, waa dhiirigelin. Kusoo dhawow muuqaalkeena cusub ee caawa. Tani waxay ahayd waxaan jiray 18 sano. Aniga markaas caajis ayaan dareemayay. Markaas waxaan ka soo baxay musqusha. Mobilkeygina waxaan fiiriyay asagoo fariimo fara badan oo fariimahaasna yihiin email sida ugu dhaqsiyaha badan. Runtii aniga markaas waa yaabanaa. Qofkaasna wuxuu ugu balamiyay meesha baakinka. Aniga laakiin dan iyo heela markaas kama galin, waa iska fadhiistay. Anigoo markaas fikiraya oo yaaban ayaa markaas waxay igu soo dhacday inuu qofkan muhiim yahay. waa inaan soo arko. Markaas gaarigayga ayaa aniga fuulay, anigoo markaas leh geesaha fiirfiirinayo. laakiinse waxaa jeclaystay inaan markaas ugu tago baakinka. Runtii magaaladan cidla ayay ahayd, waxayna ahayd 11:15 habeenimo. Anigoo markaas yaaban oo meesha xataa tareemada cidla ay yihiin ayaan waxaan istaagay darbiga gaarigaygana banaanka ayaan dhigay. Waxaan fiirinayay qof soo socdo. Runtii dhaxan badanna way jirtay habeenkaas. Aniga markaas waa yaabanaa. Anigoo markaas zaid u qarqarayo oo yaaban ayaa waxaan jeclaystay inaan tago meesha baakimaha. Markaas kadib anigoo markaas naxsan ayaa waxaan arkay arrin naxdin leh. Shanqar ayaan markaas maqlay xoogaha markaan joogay. Aniga markaas waan nacay, zaid ayaan u cabsooday. laakiinse geesaha ayaa fiirfiiriyay, cidna way ii muuqan weyday. Markaas kadib qof aad u weyn oo xoog zaid leh ayaa soo kor istaagay. Aniga markaas waan nacay. Wuxuuna yidhi lacag keen wariyaa ama waa ku dilayo. Aniga markaas waa yaabanaa. Runtii zaid ayaan u dhididayay. Waxaan fiiriyay jaabkiisi, waxaana ku jirtay muddo aad u dheer oo zaid u weyn. Aniga markaas waan naxsanaa. Runtii cabsi badanna waa dareemayay. Anigoo markaas yar ooynayo oo naxdin badan dareemaya ayaa markaas waa fikiray. Waxaan dhahay ninkan waa inaad sirtaa. Ninka isla markaas wuxuu yidhi haddii keeni weydo lacag waa ku dilayaa wariyaa. Markaas waxaan dhahay gaarigayga banaanka ayuu yaalaa, cideena ayaan aadaynaa ninka. Kadibna wuxuu yidhi maxaa kaa qaldan, ma aqoon baa ii leedahay wariyaa. Kadibna waan nacay. Waxaan dhahay aqoon kuma lihi, laakiinse waxaan dhahay lacag haddaan ku siinayaa. Kadibna waxaan jeclaystay intuuna i dilin ninka inaan lacag iska siiyo, waayo naxdin badan ayaan dareemayay iyo cabsi. Lacagta markaas markuu iga qaatay ayuu wuxuu yidhi wariyaa lacag kale ayaa laga rabaa, haddii kale waa ku dilayaa. Kadibna waxaan dhahay lacagta hadda ku siiyay ma kugu yartahay. Waxaan dhahay lacag kale ma hayo, iga qalee. Kadibna way soo kor istaagay. laakiinse ilaahay amarkiis shanqar ayaa ka yeeraysay dhanka dambe albaabka. Kadibna asaga wuxuu damcay. Markaas kadib waan ka cararay asagoo markaas i dil rabo, laakiinse waan cararay. Waxaana fuulay wiishka saan markaas goobta uga cararay ninka uu joogo. Aniga markaas dhidid badan ayaan iga daadanay, cabsi badanna waan dareemayay. Markaas gaariga ayaan koray saan meesha uga albaabkana wuu xirnaa, waayo meesha baakinka ayaan markaas gaari ka qaatay. Kadibna waxaan fiiriyay muraayada saan u arko ninka inuu soo socday in kale, laakiinse waxaan arkay ninka inuu xawaaro sare ku soo socdo oo ii soo dhow yahay. Kadibna waan qayliyay. Waxaan jeclaystay inaan gaarigayga goobta ka dhaqaajiyo. Ninkana mar labaad ayaan fiiriyay, xawaaro zaid ayuu ku soo ordayay. Markuu ii soo dhawaaday ayaan gaariga sheer lahaa si zaid u riixay, anigoo markaas zaid u baqayo. Xaafadda markaan imaaday gaarigayga waan dhaqday. Mar dambe